aan maanta u yeernay marti waxaan ugu yeernay mid ka mid ah iskuulaadka ee ardaydu ku sugan tahay laakiin wixii dhacay oo ugu yeernay wax ka duwan ayuu ahaa booskaadada ku dhajiya ardayda soo daaya ما شاء الله كان بوقاكتا السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله وكادي والله شيدي mid ka mid ah ardayda la soo galiyo halkaas sii fariiso intaan gudaha ka soo noqonayo. الله waa aniga sawirkaygii way waa anigii halkan taagan iyo idin siidinka sawirkan الله waan tagayaa sawirkaygii waan meeshan ku arkayaa waaba yaabsanahay ka war iya waaba magacaygii wanaagaygii waan iska tagayaa anigu waan tagayaa sawirkaygii waan meeshan ku arkayaa joornaalka wayna bilowdaan عبد الله وهويدا بلشدا waxaan maqalnay inay heshay ilmo yar aan hooy iyo barbaarin ba aan haysan way korsatay marnaba kamay dheeraan qalbigeeda ayay u furtay jacayl iyo kalgacal waalidnimana wuu u muujisay sidii ilmaheedoo kale waxayna haysay soo kurnaysay muddo gaaraysa 30 sano ilaa maanta way haysataa عبد الله وهويدي وين soo korisay ما شاء الله akhlaaq wanaagsan wayna bartay dhiirigelin wayna wayna siisay dadka iyadoo kala dunida way ku yaryihiin hooyo saaxiib walaal eedo wax kasta iyaad عبد الله aniga waa hooyaday waana soo rabaydisay ilaa inta ka soo weynaanayay waan guursaday awlaadna waan dhalay ilaa maanta karaaman u hayaa hooyaday عبد الله وقف aaduna haris badan sidii ubadkeedu kale u korisay عبد الله nolosheeda kaalin weyn ayay ku leedahay haddii yaraanteeda dib ugu noqdo wadadeedu 13 jir ahayd ilaa 14 jir waxaan ahaa mid ay wada ciyaaraan ubadkeeda meel aan seexda ma haysan wiilkeeda Cabdalla ayay weydiin jiray markaan beerta ku wada ciyaarayno halkeebaad seexataa markaas waxaan ku dhahay anigu masaajidkaasaan seexdaa kadib isagii hooyadii ayuu tagay waxaan ku dhahay wiilkan anaga nala ciyaaro hooyo aan masaajid ku seexdaa been bad sheegaysaa bay ku tiri may waa runtay wiil hooyo masaajid ku seexdaa markuu anaga maalintii nala joogo kadibna masaajidku ku noqdaa qof aad u qalbi wanaagsan weey hadal xun hataa ku oran mayso isagii ayaa ii yimid wuxuu igu yidhi hooyaa ku doonaysaa aan kadibna aniguna waan u tegay aniguna garan maayo dib wixii laga doonayo markii aan u tegay waliba iyadoo i sugaysaa si toosa oo waliba bila hadala dhaqso musqusha galo soo meelay igu tiri marya carruurteedana xidho kaa doonto cashadina waa diyaariyay kaalay qolka taasi maalintii ugu horeysay bay ahayd waxaan ugu tiri wiilkan waa walaalkiin widila seexanaya waa widila xidhanaya gurigana waa ka mid markaan qolkayga soo galay oo sariir kale la soo dhigay halkaas oo nuguna noolaa anigu waxaan dhahay maalintaasoo kaliya la joog maalinta kalena iskaga tag halkaad joogtay maalin 2 maalin toddobaad bil iyo bilooyinba qoyskaasaan ka tirsanaa wala noolaa waxay ila dhaqantayna
sida ubadkeedoo kale si ka wanaagsan. waxayna dareensiisay mid ka mid ah walaaladay meel walba sida wax noo siisay isagana u siin jirtay dhar khaas ah xataa ii samayn jirtay. anigu waxaan dareemay markaa micnaha bal qof aan ku garanayn way yartahay inaad aragto qof gurigiisii ku furaya iyo qalbigiisii. Umu Cabdalla waa qof dahabadun aad u wanaagsan, aad baan u qalbi wanaagsan tahay, wayna naxariis badan tahay, qiimo badanna way leedahay. aniga naftirkayga waxbay bartay sidaa qoyskan ka tirsanaaday. mar baa jirtay aan bukooday. run ahaantii waxaan dareemay naxariis hooyanimo. daqiiqad keliya xataa igama ag dheeraanayn. mar walba xaalkayga ogaanaysay, qandhadaydii ogaanaysay. dawma cabta hooya bay oran jirtay. hadda maxaad dareemaysaa? waxaan dareemay naxariisii janno. marna maan dareemin ay hooyaday dhimatay. waxayna dhimatay markii da'deedu jirtay 7 sano. muddo ay ugu dambeysay daryeelkan oo kale weligii ma dareemin. awal waan baqan jiray daryeel la'aan, laakiin maanta waxaan dareemay inaan meel wanaagsan joogo. xilligan doono aan anigu isdhaho tag way u qaylin jirtay. raalli kama ahaan jirin, marnaba igama ogolaan jirin in aan ka dheeraado. haddii wax ku dhibeen ambay dhacday ii sheeg bay tiri. naxariisteedu dadkoo dhan bay gaadhay. oran kari mayno shakhsi keliya, laakiin dad badan bay u qabatay. aad ayay dadka u gargaartaa. hooyo adigu waxaad tahay qof qaali ah. waxaadna bartay akhlaaq, waxaadna bartay diin, wanaag oo dhan baadna bartay. marna dhagamaad yaraysan. annagoo yar baadna soo caawisay ilaa maantaadna caawinaysaa. ilaahay cumrigaaga ha dheereeyo hooyo. ilaahay jannatilfirdows ha ku geeyo. hooyadeyda qaaligeed, adigu waadna soo rabaa'idaysay. mahadnaqaaga halka kuma soo koobi karo, way igu yar tahay. anigu waan ku jecelahay, marnaba igamaad dheeraan. waad i caawisay. insha allah ereyga jaceylka qalbigayga ku jira. wax ka qaalisanna waadna siisay hooyo. indhahaygaas kaama ag dheeraan karaan insha allah hooyo. wax walaad iga codsato nafteeda xataa haata waa ku siinayaa. hooyo waan ku jecelahay, waanaad ku mahadsan tahay. si wanaagsan baad ii xanaanaysay. ilaahay khayr ha ku siiye. qalbigaagan wanaagsan iyo samirkaagan wanaagsan iyo fursadaad isiisa anigaba hooyo. waxaasoo dhan hooyo yacni dhiirigelintaada noloshaydo dhan baad qayb weyn ka tahay hooyo. ilaa maanta carruurtaydu hataa way ka faa'iiday rabaayadadii rabaayadaysay. ilaahay caafimaad ha ku siiyo hooyo. cumrigaagana allah ha dheereeyo. ilaahay idin waan ku daayo, jeclahay. ilaahay idin mahadsanid. daayo. noloshaydii alla noloshaydii ilaahay idin daayo. waa hooyo aad u naxariis badan, qalbi wanaagsan, daacada. hooyadu waa nimco ilaahay inoogu deeqay. amba ahaato hooyada ku dhashay amba mid ku soo korsataybe, alle subxaana wa tacaala ayaa inoo sakhiray. walaalkayga muslimka ah, hooyadu waa shay qaaliya. hooyada ku soo korisay iyo hooyada ku dhashaaba weji naxariis la tus, u abaalgud, mahadsanid ku dheh, dhiirigeli, ka ilaali xumaato. arrintani lama filaan bay igu noqotay aniga. wadnahayguna farxad buu la boodbooday. waaba rumaysan kari waayey. waxaabay la noqotay inaan riyoonayo. wakhtigaa waxaan dareemay in kor la ii qaaday. alfalaax qur'aan online waxyaabahaad ku dhiganayso waxaa ka mid ah barashada kitaabka ilaahay adigoo si tajwiid leh u baranaya muddo aad u kooban. barashada higaadda carabida oo aas-aas u ah inuu qofku qur-aanka kicin karaayo. barashada siirada nebigeenna, barashada axaadiista nebigeenna iyo barashada ducooyinka aasaasiyaadka ah ee qofka maalinle looga baahan yahay. aynu ka faa'iidaysanno inta aynu nool nahay oo aynu baranno kalaamka ilaahay. wixii faahfaahinee intaa dheer waxaad kala xidhiidhaysaa taleefanka shaashadda kaaga muuqda. ballanteennu waa dugsiga alfalaax qur'aan online.